moogtahay in ninkan uu qaaday faraskiisa isagoo ku qaaday dhabarkiisa wuxuuna la socday 3 mayl kadib markuu maska qaniinay faraskiisina uu badbaaday ugu dambeyn moogtahay in kafeegan ku yaala dalka Faransiiska ay charger gareeyaan halkii kaab ee kafeega $7 markuu customerku yahay mid dhib badan halka 1.40 senti ay ka qaadaan customerka ixtiraamka iyo qadarinta badan ee sida fiican u laqma shaqaalahooda moogtahay in aygan uu yahay ayga ugu qaalisan adduunka dhererkiisu waa 66 sentimeter ilaa 76 sentimeter halka culayskiisu yahay 45 ilaa 73 kg wuxuuna joogaa lacag dhan $1.5 milyan moogtahay in hotelkan ku yaala dalka Japan ay ka shaqeeyaan daanyeeradu waliba sidii waiter amba kabalyeeri ahaan waxaana loo siiyaa mushaar ahaan muus ku filan aamin amaha aaminin suulkaagu wuxuu la dherer yahay sankaaga bal tijaabi adna moogtahay in Steve King uu yahay qoraaga qora sheekooyinka qaaqda ee Hollywoodka waxaana uga caansan sheekooyinku qoray filimka lagu magacaabo It haddana ninkan waa mid ku seexday iftiinka laabmada oo bilaa iftiin maba seexanayo moogtahay in Rajasthan ee dalka India ay dumarku madaxa biyaha ku soo qaadaan waliba miles inta lagu guda jiro samarka kulul moogtahay in jirta xaalad la yiraahdo sleep paralysis waana xaalad qofku uu jirkiisa u dhaxeeyo hurdo iyo soo jeed macnaha qofku uu soo jeeda laakiin isma dhaqaajin karo mana hadli karo hadaba xaaladan weligaa ma isku aragtay moogtahay in odaygan Camu Xaaji uu yahay ninka adduunka ugu uskaga iyo wasakhda badan 60 sano ayuuna meeran hadaba daawada su'aal waa maxay waxa dadka baahan ay haystaan dadka taajiriintina ay u baahan yihiin inay helaan haddaad cuntaan aad ku dhimanayso shaygaas wuxuu yahay haddaad garanayso commentiga hoose noogu sheeg hanay loobin in like sarto muuqaalkan sidoo kalena aad ugula saaxiibto barteena TikTok iyo barteena YouTube